fadlan haddaad nagu cusub tahay sabskraib noo saar. Magacaygu waa Xafsa. Kadib markii uu ninkayga dhintay, noloshayda oo idil way isbedeshay. Waxaan tii aan nuguma tegin. Marka laga reebo wiilkayga yar ee Fuaad, wuxuu ahaa waxa kaliya ee aan haysto. Waxaan bilaabay in aan ka shaqeeyo nadaafad si aan u helno nolol maalmeedkeena. Laakiin waqtiga mar walba kuma saacidi doono. Maalin maalmaha ka mid ah, Fuaad wuxuu dareemay tabardarro iyo qufac aan kala joogsi lahayn. Waxaana iska cadeed inuu xanuunsanaa. Waxaana u qaaday isbitaal. Waxaana la seexiyay sariir. Dhakhtarkii ayaa ii yimid si uu iigu sheegay waxa ku dhacay wiilkayga. Xaaladda cunugaaga aad ayay u liidataa. Wuxuuna ka jiran yahay sanbabada. Wuxuuna u baahan yahay qalliin degdeg ah. Warkaa markii aan maqlay, waan suuxay. Waxaase iiga darreed sida aanan waxba meel ugu ogeyn. Aad ayaan u niyad jabay, mana heli karin cidi caawisa si aan u badbaadiyo wiilkayga. Dhakhtarkii sidoo kale wuu ila murugooday, laakiin waxba gacanta uguma jirin. Waxaan fariistay jartiin ku yaala beerta isbitaalka, anigoo welwelsan si aan uga fikiro sidii aan waxyeeli lahaa. Inankayga wuxuu iga codsaday in aan isdejiyo oo aan aado guriga. Sikadiisa waxaa ii soo ag fariistay nin. Si fiican ayaan u fiiriyey. Wuxuu dharkiisa iila muuqday nin hantiila ah oo ladan. Si fiican ayuu isna ii fiiriyey. Wuxuuna yiri soo dhawow Marwa Xafsa. Waxaan weydiiyey qofkuu yahay iyo siduu igu aqoonsaday. Waxaa lagugu imtixaanay xujooyin aad ku dhimanayso, laakiin wiilkaaga uu ku badbaadayo. Aad ayaan uga naxay hadalkiisa. Waxaan is weydiiyey siduu ku ogaaday arrimaha wiilkayga iyo wuxuu ula jeedo xujooyinka dhimashada keeni karaa. Waxaan mar kale su'aalay, maxaad ka hadlaysaa? Yaa tahay adiga? Kuma garanayo anigu. Haddii aadan rabin in aan kuu badbaadiyo cunugaaga, waan kaa sii tegayaa. May sug, waxaad rabtaan samaynayaa, laakiin seen kugu aamin anigoon aqoon kuu lahayn. Ninkii isqarinaya wuxuu soo saaray lacag, wuuna tiriyey, kadibna wuu ii dhiibay. Wuxuuna yidhi, lacagtani waa 20% qarashka wiilkaaga laga rabo. Inta dhimanna waxaad helaysaa markaad ku guulaysatay imtixaanka. 1:00 subaxnimo waxaad iigu timaadaa albaabka hore ee qubuuraha. Ikhtiyaarkan adigaa iska leh. Ninkii wuu baxay, gadaalna ma soo fiirinin. Aniguna fikir ayaan la maashooday. Madalabkiisa ayaan u aqbalaa si aan u badbaadiyo cunugayga, isagoo iska daayaa. Waxaan eegay dhanka albaabka qubuuraha. Xilligii ballanta ayuu yimid. Waxaan u raacay gudaha qubuuraha. Waxaan aragnay qabri cusub oo bannaan. Wuxuuna yidhi, qabrigan ayaad galaysaa, waana kugu duugayaa. Maalinta arrintaas ma samayn karo. Ninkii mar kale wuxuu soo saaray lacag, wuuna siiyey. Tani waa 20% kale oo qarashka wiilkaaga ah. Waxaad halkan ku jiraysaa muddo 24 saacadood ah, laakiin haddii aad in yar dhaqdhaqaaqdid wax walba waad weynaysaa. Markii uu ninkii godkii igu duugay, naftayda ayaan xabisay. Waxaan isku celiyey qayladii. Neefta isku celin haddii kale waad dhimanaysaa intii aad meesha ku jirto. Waxaan arkay caaro igu dul socota. Wayna i qaniintay, laakiin waan u adkaystay xanuunkii oo idil. Waxay ila noqotay in aanan saacad u socon. Waxaan ka baqayay inaan cabur u dhinto, laakiin cunugayga badbaadadiisa ayaa wax walba iiga darnayd. Markii uu waqtigii dhammaaday, waxaa ila noqotay qabriga in la soo qodayo. Waan sugay. Waxaana u maleeyay in uu ninku i khiyaameeyey oo uu meesha iiga tegay oo aan qabriga gudihiisa ku dhimanayo. Waxaan is weydiiyey doqonnimadayda sideen arrintan u ogolaaday. Si kadis ah waxaan maqlay qabrigii oo la soo qodayo. Wax yar kadibna waxaan dareemay hawo yar oo i soo galaysa. Waxaan u soo baxay bannaanka. Waxaan helay hawo nadiif ah. Aad ayaan u neeftuuray. Waxaan rumaysan waayay in aan bannaanka joogo. Wuu ii hambalyeeyey. Wuxuuna yidhi, xujadii koowaad waad ku guulaysatay. Haddana waxaan aadaynaa tii xigtay. Silicii aan qubuurta ku soo maray kadib, waxaa ii sawirmay mid ka seexan. Laakiin waxaan arkay hoteel aad u qurxoon. Waana isdejiyey. Wuxuuna yidhi, cuntadan. Waxaan dareemay shaki. Laakiin markii aan cuntadii fiiriyey, wax kasta waan ogaaday. Waxay ahaayeen cayayaan la soo aruuriyey iyo dixiri. Waa la balabooday. Ma waalan tahay? Ma waxaad rabtaa in aad i sumaysid? Waxaan ma cuni karo. Waxaan ogaaday in aad tahay hooyo iska ciyaaraysa oo aan jeclayn cunugayga. Ma waxaad ka dooratay wiilkaaga Fuaad dhimashadiisa? Waxaan irbeen ayaad sheegaysaa cunugayga dartiis wax walba waan u samayn karaa. Malqacadii ayaan qabsaday, indhahana waan isku qabtay, cunadiina waan bilaabay. Xaaladdu aad bay u adkayd, laakiin waan u adkaystay si aan cunugayga u badbaadiyo. Cunadii oo idilna waan dhammeeyey aniga oo matag isku celinayo. Wuxuuna yidhi, maasha Allah, waad guulaysatay. Waxaadna mutaysatay lacag kale oo dhan 20% lacagtii dhimanayd. Haddana waxaan u gudbaynaa imtixaankii ugu dambeeyey. Wuxuuna noqon doonaa midkii aad ku badbaadin lahayd cunugaaga.
waxaan u hamuun qabay in aan gaaro yoolka ugu dambeeya ee cunugayga, badbaadadiisa. Laakiin ma ogeyn wuxuu noqon doono. Waxaan dareensanaa inuu kuwii kale ka adkaan doono. Waxyar kadib wuxuu i geeyey dabaq aad u dheer korkiisa. Wuxuuna yidhi, Marwe Xabsa, wax badan waad guulaysatay, laakiin tan baa ugu dambaysa oo noloshaada iyo nolosha wiilkaaga ayaad kala dooranaysaa. Waxaadna ka boodaysaa dabaqan, cunugaagana wuu badbaadayaa. Waan yaabay oo waan rumaysan waayey. Dadaalkaygii oo dhanna meel bannaan buu ku soo idlaaday. Ninkiina jawaab buu iga sugayey. Wuxuuna qalbigayga i siiyey in aan cunugayga naftayda u huro. Sidaas darteed waxaan go'aansaday inaan aqbalo dalabkiisa. Laakiin cunugaygu wuxuu noqonayaa rajay. Waxaana weydiistay inuu ii ballanqaado daryeelkiisa ilaa uu ka qaangaaro. Wuxuuna ii dhiibay warqad heshiiska uu ku aqbalayo. Waana saxiixay. Wuxuuna yidhi, hadda waa inaad fulisaa. Haddaba inta aanan dhiman ma ii sheegi kartaa qofka aad tahay iyo sababta aad waxaan oo dhan u samaynayso? Maxaadse ka faa'iidaysaa dhimashadayda? Igama jawaabin su'aashaydii. Wuxuu sugaayay in aan dhinto. Si fiican ayaan u neefsaday. Waxaan xasuustay wejigii Fu'aad. Waxaan dareemay farxad iyo murugo isku laban. Horay ayaan tallaabadii u qaaday. Waxaan u diyaargaroobay in aan boodo. Laakiin si kadisa ayuu ninkii ii qabtay si uu ii badbaadiyo. Wuxuuna yidhi imtixaankii ugu dambeeyey wuu kuu dhammaaday. Waana kuu hambalyaynayaa. Isla markiiba iftiin ayaa daarmay. Waxaan arkay sawirqaadayaal aad u badan oo na duubaya. Ma neefsan karin, wadnahaygana aad ayuu u garaacmayay. Mana aaminsanayn in aan badbaaday. Maama, maxaa dhacay? Wax walba waan kuu sharixi doonaa. Waxaan soo gudbiyaa barnaamij la yiraahdo meeqa ayaa gaari doonta. Dadku wax badan kama yaqaanaan. Waxaa kaliya ah oo lagu muujiyaa shabakada madow. Waxaana jecel dadka maalqabeenka ah iyo kuwa hantiilayaasha ah. Waxayna ku bixiyaan lacag aad u badan si ay u daawadaan. Waa la imtixaanaa qof walba oo ka qayb gala iyada oo loo eegayo duruufahooda si aan u ogaano dulqaadkiisa, inta uu dhan yahay iyo si uu u badbaadiyo qof uu jecel yahay. Waxaan rabnaa in aan ogaano jacaylka qofkaas kaala dhexeeya, inuu dhab yahay iyo inuu dhalanteed yahay. Dad badan ayaa ku guuldarraystay imtixaanka koowaad, kuwo kalena waa ay ku dhinteen. Laakiin adiga waxaa tahay qofka naga yaabiyey. Jacaylka aad cunugaaga u qabtinna waa mid xaqiiq ah. Bulshadana daawanaysana waa ay kaa yaabtay. Hambalyo. Waxaad ku guulaysatay lacagtii qalliinka cunugaaga oo idil. Aad ayaan u naxay. Hadal laygama soo baxaynin. Si kastoo ay ahaataba arrinka ah u sheegin booliiska. Ma rumaysnayn in aad ka gudbaysay imtixaanaadkan oo idil. Geeriduna waa naxariista ugu dambaysa ee qof kale u sameeyo. Macsalaama. Ninkii wuu tagay. Lacagtii qalliinka wiilkaygana wuu ii dhammaystirmay. Laba ahaantii cunugaygii qalliinka wuu galay, waana lagu guulaystay. Wuxuuna helay caafimaadkiisa si tartiib ah. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa gurigayga laygu keenay sanduuq. Waana la yaabay, waayo ma aanan dalbanin. Waan furay. Waxaa arkay sikadiisa lacag aad u badan oo ka buuxda. Waxaa kor saareed waraaqad. Waan qaaday. Waan akhriyay. Waxaa ku qornayd sidan: mahadsanid. Waxaa muuqaalkaaga daawaday bulsho badan. Wayna ka heleen jillinkaaga. Lacag badan ayaa ka helay. Qayb ka mid ahna waan kuu soo dhiibnay. Dadaalkaaga awgeed. Sidaa darteed waxaan kuu rajaynaynaa guul adiga iyo cunugaaga Fu'aad. Lacagtu way nagu fillayd nolosheenna oo idin. Barnaamijkeena halkaas ayuu inoogu eegayaa.